degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ee ku yaalo dhanka bari ee xeebta Soomaaliya waana degmo ku taal meel istiraatiiji ah ee ku wanaagsan howlaha dalxiiska iyo tamashlaynta waxayna degmada Warshiiq nolosha dadku ay ku tiirsan tahay xoolaha iyo kalluunka iyo beeraha waxayna leedahay xeeb aad u dheer ee ku haboon kalluumaysiga iyo damaashaadka waana degmo diimeed oo ay culimo fara badan ee Soomaaliyeed ay ku faafin jireen diinta Islaamka waxaana ka soo aflaxay culimo aad u fara badan degmada Warshiiq ayaa waxa ay soo martay dhowr maamul iyo marxalado kala duwan ee dhinaca nolosha burburkii dalka kadib ayadoo maamulkii ugu dambeeyay ee soo mara degmada uu ahaa gudoomiyihii degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Colonel Axmed Xuseen Axmed oo loo yaqaano Axmed Shiidka kaasi oo xilka kala wareegay gudoomiyihii isaga ka horeeyay ee la oran jiray Axmed Cali Xasan isagoona sidoo kale hadda ku wareejiyay xilka gudoomiyaha cusub Axmed Maxamed Cumar markii uu la wareegay xilkaasi Colonel Axmed Xuseen Axmed Shiidka sanadkii 2015 ayaa waxa ay degmadu ahayd mid burbursan oo aan lahayn adeegyada aasaasiga ah bulshada sida suuq isbitaal iskoolaad iyo saldhig booliis iyo maxkamad iyo adeegyo kale oo muhiim u ahaa bulshada ku nool degmada Warshiiq markii uu xilka la wareegay Colonel Axmed Xuseen Axmed Shiidka waxa uu durba bilaabay kulamo gaar oo la yeelanayo konsolka degmada Warshiiq shacabka ku nool degmada odayaasha culimada diinka iyo waxgarad kale ee ku nool degmadaasi Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu kala hadlayay arrimaha degmada iyo baahiyaha ay qabaan bulshada ku nool degmada Warshiiq iyo sidii loogu wada shaqeyn lahaa horumarka degmada Warshiiq isla markaana ay u heli lahaayeen dadka ku nool degmada adeegyada aasaasiga ah bulshada reer Warshiiq sida iskuulaad isbitaallo saldhig booliis ceelal biyood adeeg koronto iyo adeega garsoorka wuxuuna dhisay xaruntii maxkamadda kaasi oo xariga ka jaray gudoomiyaha Axmed Shiidka iyo adeegyada muhiimka ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa bilaabay howlo shaqo kormeero ah oo uu ku tagay deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada Warshiiq isagoo u koorgalayay sida ugu haboon ay u heli karaan horumarka iyo waxqabadka degmada Warshiiq wuxuuna gudoomiyaha Axmed Xuseen Axmed Shiidka uu ka qabtay degmada Warshiiq howlo la taaban karo ee muuqda waxa uu keenay mashaariic lagu horumarinayo degmada Warshiiq waxaana la dhihi karaa waxa uu ka qabtay wax wanaagsan ee muuqda dhinacyada ammaanka sidoo kale ay wax ka qabtay wuxuu dhisay saldhig booliis ay leedahay degmada Warshiiq oo aanay hore u jirin suuqa degmada Warshiiq MCH-ka degmada iyo mashaariic leerarka cadceeda ku shaqeeya ee laga hirgeliyay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale gudoomiyaha Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa tuulooyinka iyo deegaanada hoostaga degmada Warshiiq ka hirgeliyay iskuulaad hoose dhexe ah oo ay u baahnaayeen dadka deganaa tuulooyinkaasi waxaana ka mid ahaa tuulada Qayloweyne oo uu ka sameeyay MCH School hoose dhexe ah iyo sidoo kale mashruuc lagu qoday ceelbiyood oo laga qoday duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxa uu ka hirgeliyay si bulshada reer Warshiiq ay u helaan biyo macaan oo nadiif ah iyagoona dhibaato ku qabay helitaanka biyo macaan oo nadiif ah degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku yimid isbedel dhinaca horumarka ah waxaana ka shidmay leerarkii cadceeda ku shaqeynayay waxa uu gudoomiyaha Axmed Xuseen Axmed Shiidka uu tusiyay indhaha bulshada caalamka in degmada Warshiiq ay tahay meel ku haboon dalxiiska iyo tamashlaynta kuna haboon kalluumaysatada gudoomiyaha Colonel Axmed Shiidka ayaa sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada degmada oo ka kooban 50 tuulo ayuu ka hirgeliyay mashaariic isugu jirta ceelal oo uu ka fuliyay 23 tuulo iyo suuqyo lagu ganacsado MCH iyo iskuulaad laga hirgeliyay 20 tuulo wadooyin oo sameeyay guddi u gaar ah
tuulo kasta ee ka mid ah tuulooyinkaasi. gudoomiyihii hore degmada Warshiikh ayaa howlo shaqo ku tagay wadanka Koonfur Afrika, halkaasi uu kula soo kulmay mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka soo dhaadhiciyay in degmada Warshiikh ay u baahan tahay in laga qayb qaato horumarka lagana fuliyo mashaariic lagu dhisayo ama lagu horumarinayo degmada. wafuudaasi oo ugu dambeyn ku soo dhiiraday in ay yimaadaan degmada Warshiikh ayna booqdaan tuulooyinka ay ka kooban tahay degmada Warshiikh, waxayna ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa bilaabatay in ay soo booqdaan degmada Warshiikh wafuud heer caalami ah ee ka socday adduunka, kuwaasi oo doonayay in ay ka hirgeliyaan degmada mashaariic kale ee lagu horumarinayo degmada Warshiikh. ayaa waxaa durba soo ifbaxday warqad dikreeto ah ee xilka looga qaadayo mudane Axmed Xuseen Axmed Shiidka oo lahaa hami aad u wanaagsan oo ku doonayay in uu gaarsiiyo degmada Warshiikh meel ka wanaagsan meesha ay hadda taagan tahay. degmada waxaana la dhihi karaa gudoomiye Axmed Xuseen Axmed Shiidka wuxuu qabtay ma ahan wax daboolan ama la dabooli karo, la qarin karo. degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa degmo loo aqoonsaday xilligii dawladii dhexe ee militariga ahayd uu hogaaminayay Allah u naxariiste Jaalle Maxamed Siyaad Barre. waxyar kadib waxaa burburay dawladii Soomaaliya. degmada oo aan lahayn 6 shuruud oo degmo laga sameyn karo sida xaruntii degmada, saldhigga booliiska, isbitaal caafimaad, suuq iyo iskuulaad waxbarasho, maxkamadda garsoorka, ayaa waxaa kolonel gudoomiye Axmed Xuseen Axmed Shiidka markii uu la wareegay xilka gudoomiyenimada ka hirgeliyay dhammaan adeegyadii ay u baahnayd bulshada degmada reer Warshiikh oo ka kooban saldhigga booliiska, isbitaal caafimaad, suuq iyo iskuulka hoose dhexe sare ee waxbarashada, maxkamadda garsoorka. kolonel gudoomiye Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa tuulooyinka ka hirgeliyay wadooyin u fureeyay si ay u fududaato isu socodka dadka iyo gaadiidka. gudoomiyihii hore degmada Warshiikh kolonel Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa sidoo kale wax ka qabtay dhinacyada isdhexgalka bulshada, ciyaaraha kubadda cagta, wuxuuna sameeyay kooxo ciyaartooy ah oo ay leedahay degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale gudoomiye Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ka qayb qaatay isu keenida iyo howlaha dib u heshiisiinta, kaasi oo dhexdhexaadin ka sameeyay beelo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. isku duuba guud ahaan howlaha horumarineed iyo waxqabadka ballaaran uu sameeyay gudoomiyihii hore degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah mid aad u ballaaran, isla markaana uu lahaa hami ballaaran uu ka hirgelinayo mashaariic kala duwan uu doonayay in uu ka sameeyo degmada Warshiikh oo uu ku hormariyo degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan qormadayda ku soo gabagabeynayaa gudoomiye kolonel Axmed Xuseen Axmed Shiidka xilkii uu wareejiyay, laakiin xagay degmadu Warshiikh arrimaheeda horumarineed ay ku dambeyn doontaa? ma ka sii wanaagsanaan doontaa halka ay hadda marayso, mise way ka sii dari doontaa sida quruxda badnayd ee uu u wareejiyay xilka uuna soo qaban qaabiyay munaasabad xil wareejinta? waxaa dadkii iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay xafladaasi kana hadleen ay isku raaceen, ayna caddeeyeen in uu horumar ka sameeyay degmada Warshiikh. maxaase la gudboon maamulka cusub ee xilka lagu wareejiyay xilligan iyo shacabka ku nool degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe?